أبي أحمد oo ku fashilmay warqado badan oo uu qoray wadamada adduunka markii Soomaaliya Eritrea iyo Masar ay isbahaysiga sameysteen ayuu bilaabay in uu wadamada dunida warqado u qoro laakiin arintaas waji gabax weyn ayuu kala kulmay African Unionka Mareykanka igad ururada caalamka jiro dhan waxa uu bilaabay in uu warqado u qoro kuwaas oo uu leeyahay hal cambaareeyo arinta ay halkan ka wadaan Soomaaliya Eritrea iyo sidoo kale Masar waxa uu rabay isagu in loo aqoonsado urur argagixisay inay yihiin nimankan laakiin waa uu ku fashilmay okay xogta oo dhameystiran la daawo Abiy Ahmed warqado far badan ayuu dunida u qoray maalin kadib markii kulankii xasaasiga ah ee saddex geesoodka Masar Eritrea iyo Soomaaliya uu soo gabagaboobay ee heshiisyada ka soo baxay ogeedeen oo arrimaha militariga ay ugu badan yihiin iyo difaac guud saddexdaas dal access ka loo bixiyay yani inay ku midoobaan haddii Soomaaliya la soo faragashto labadan dal inay xuquuq u leeyihiin in ayagana ay soo faragashtaan oo ay dagaalamaan adii isxulfaysigaas Abiy Ahmed markuu warqad uu diray waji gabax weyn ayuu kala kulmay waji gabaxaas horta waa idin hayaa soo kale waxa idin hayaa rigooro ayaa hortaalo umada Soomaaliyeed maanta rigooro dadkii qaano penalty waa banooni lagu dhigo Borterig iyo shabaqaas u jeed waay rigooradan ma dhalin doona ma cuni doona Ethiopianka ama Abiy Ahmed oo hadda 5 sano loogu daray jagada kursiga inuu sii fadhiyo ninkaas iyo Ethiopianka horta ayagu hilmaan badana waa la yaabay hilmaan maskaxdooda waxba ma xasuustaa u maleena dib ay idin celiyo 1977 dagaal dhacay dagaal xaq ah oo Soomaaliya ay ku qaadi adiga waxa aaminsan ku taala laakiin Soomaaliya dhulka ka maqnaa Soomaali galbeed ayaa maqan Soomaali galbeed oo maqan ayaa la rabay in dib loo soo celiyo marka duulaan la qaaday military Soomaaliya Ethiopia marka isbarbar dhigtid waagaas Soomaaliya ayaa military fiicneed taya ahaan ciidamada qalabka wax walba xulufo fiican waagaas waan lahayn Ethiopia hadda idin sheega waagaas xulufo fiican Ethiopianka ma lahayn laakiin markuu duulaanka dhacay muxuu sameeyay Ethiopianka duulaanka markuu dhacay 1977 Ethiopianka meel walba uu galay North Korea tagay wuxuu tagay Ruush wuxuu tagay Mareykan xitaa u tagay Yemen u tagay Kuuba u tagay adi dalal fara badan ay Ethiopianka u tagay muxuu sameeyay tan hadda anaga aan sameeynano ee ah Masar iyo Eritrea iyo xulufo kale inaan sameysano dowladda Soomaaliya qorshaas ugu jirtaa marka Ethiopianka markuu ogaaday in laga awood badan yahay oo xitaa Addis Ababa la qabsan karo oo ciidamada Soomaalida ay soo socdeen ayaa Ethiopianka wuxuu bilaabay in wax alaali wuxuu hay uu dhulka dhigo uu dhaho Ruushow waxa rabtid waa iga sameysan kartaa laakiin waxa kaliya ka rabaa in ciidamada Soomaaliya ay iga celisid Ruush oo waagaas hunguri weyn asagana uu ku jiray xagga mabda'a communismka waxaas faafinayay ayaa Ruushku wuxuu sameeyay inuu na soo jibiyo asagoo meesha keenay ciidamo Kuubaan ah oo asagu dagaalamay iyo ciidamo Yemen iyo kuwa xitaa North Korea adi almuhim waagaas sidaas lagu soo jibiyay marka Ethiopianka haduusan xulufo wadanin alliance haduusan waagaas wadanin waxba na lagama qaado lahayn horta taas ma cadda maanta markii aniga xulufo aan sameeysanay oo Masar iyo Eritrea garbaheena ay soo istaageen dhulku ku rafana dhulka ma dhici karto urur argagixisaab bilowday dadkan saan sheeko noocaas u bilaw balka waxa xasaday adduunka taariikhda ma hilmaamo laakiin waxa laga yaabaa Abiy Ahmed taariikhda inuu hilmaamo taas horta waxa la yaabaa dhalinyarada ha fahmaan Ethiopianka haduusan xulufo haysanin waagi 1977 ama 78 saacadan Soomaali galbeed Soomaaliya ka mid noqon lahayd ma aqaan Addis Ababa inaa sii haysan lahayn in kale ma ogi laakiin xulufadaas uu sameystay ayaa ku kaliftay in dhulkiisa iyo dhulkan hadda xoog uu ka haystaa Soomaaliya maanta horta taas ma caddahay marka asaga dhigihiisii afkiisaanan ismaqlin ma Soomaaliya manaag meel jiifto asaga Ethiopianka uu qowmiya kulaha cida la heshin kartid male kulaha cida la socon kartid male sheekaas wili baaragtay ka gudub Abiy Ahmed warqad habeen iyo maalin warqadu qoray maalmihii la soo dhaafay ninka xogaa argagaxa ku furmay warqadan uu qoray wuxuu u qoray igad iyo African Unionka iyo wax loo yaqaan UN-ka iyo kuwa kale ayagana organization oo Afrika ka jiro war Ruush warqad u qoray war Mareykan warqad u qoray war adduunka dhan ayuu warqad u qoray warqadaas waxa ku qornay Abiy Ahmed uu qoray hal cambaareeyo xulufadan argagixisada ee cusub ee dhalatay saasoo dhahay ergaas argagixiso ku daray maayil Ethiopianka wuxuu aaminsan yahay madaxda Soomaalida iyo argagixisada waa isku mid iyaga ma dhahayba muuqaalkayga hore soo daawada Soomaalida madaxdooda iyo argagixisada waa isku mid markuu wuxuu ka dhigayaa sidii in al-Shabaab iyo Masar
iyo Eritrea ay heshiyeen amal ayuu warqad u qoray sheeka idin haya waa loo soo jawaabay African Union kan uu soo jawaabay igad wali ma soo jawaabay African Union uu soo jawaabay Mareykan uu soo jawaabay sidoo kale waxa soo jawaabay European Union Europe uu soo jawaabay jawaabta la soo siiyay Ethiopiaanka waxay ahayd war Soomaaliya waa dal xur ah cidda relation karta war Eritrea waa dal xur ah cidda rabto ay leeshin kartaa war Masar waa dal xur ah dadkan haday alliance sameysteen ayaga u taalaa la dhahay anaga ma cambaareeneen marka Abiy Ahmed riyadii uu ku riyoonaay oo ahayd in Mareykan uu warqad soo saaro wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka warqad ay soo saarto ee dhahdo xulufadan dagaal ogayaal waaye waa dhibay wadaan hal laga qabto aagaas wax saas uu rabay Abiy Ahmed ila soo dhoo warqad carreyso oo wadna kurriday ninkaas u timid marka horta arrinka meeshaas uu marayaa annaga maanta sheekada markii la fiiriyo ururkan hadda alliance-gan hadda bilaawday Eritrea Masar iyo Soomaaliya sheekada waxay maraysaa 3 gool iyo ebre maraysaa Ethiopiaanku waa ebre marka Ethiopiaanka ma jiifo asaga dhaqdhaqaaq wadaa wuxuu isku dayayaa laftirkiisa xulufo military inuu sameysto dhalinyaro dhageysta dal haduusan xulufo haysanin alliance wax loo yaqaan xulufo waa dal iyo dalal kale oo midoow waay haduusan dal xulufo haysanin way adag tahay dalkaas inuu dagaal ku guuleysto tusaalayaal ku siinaa Mareykanka kuma guuleysan lahayn ama ma qabsan lahayn Baghdad haduusan xulufo wadanin waagaas sida ogeedeen Mareykan Iraq wuxuu la galay Ingiriis iyo NATO dhanaa la socotay sidoo kale Afghanistan markuu galay Osama bin Laden uu la dagaalamay Mareykan kaligiis dugal lahaa dagaalka waa la baabi'in lahay ana hadii idin sheegay Mareykan kaligiis duu dagaalkaas al-Qaa'ida uga hor imaan lahay Mareykan waa la cun lahay waxay dhulka dadkii yaqaano iyo buuraha dadkii yaqaano ayaa dagaalka inta badan ku guuleystay moogtahay marka Mareykan xulufu watay intaas 100,000 oo askari ayuu la shirtay horta intaas way cadaa umalayna marka Ethiopiaanka hadduu hurdada ka soo kacaya hadduu fahmay waxyaabihii uu ku riyoon jiray Soomaaliya aniga iskale waxa rabaa ka samaysan karaa hogaami kooxeedadan ama maamul goboleedadan meesha iska joojooga ana iska wadwato waxa rabaa samaysan karaa dowladan Muqdisho fadhiso Muqdisho ma soo dhaafayso isdhahay moogtahay Muqdisho ma soo dhaafayso okay Xasan Sheekh Muqdisho ma dhaafin kaba soo qaadmo Muqdisho ma dhaafin laakiin Xasan Sheekh wuxuu tagay ani Xasan Sheekh difaaciga ma Soomaaliya qalad ay fahmi dowladeena marna waa cambaaraya markay qaldan tahay markay saxantayna waxaan dhaawaa saxantay laakiin dowladii ay isdhahayeen Ethiopiaanka Muqdisho ma soo dhaafin Asmara tagtay Qaahira tagtay xulufay samaysatay wartaangiyada Egypt mar dhow arki doontiin ayagoo soo degay arrimo waaweyn oo soo socdo December iyo Janaayo kala wareegii African AMISOM iyo kuwi kale iyo waxa bilaawanay moogtahay marka hadda sida sheekada ay u socoto waxay u muuqataa in guusha anaga ee raacayso diblomaasi ahaan iyo xulufada military waxa soo dhan aasmeysanaano dal xur ah oo qadiyad leh oo u madax banaan dadku dalkooda ayaa nahay dowladeena markay adduunka awood ku yeelato Ethiopiaanku inuu baxaado bixi waayo hadda waxa ku qasbanaa markaas dagaal faraha la isku tago inuu meesha ka dhaco okay warku waa u dhan yahay Abiy Ahmed waa uu ku soo fashilmay dadaaladiisii uu islahaa ku cuuryaami xulafadaas waxa la yirahdaa wadamadan waa wadamo xor ah cidda ay rabaan ay heshiis la gali karaan cidda ay rabaan bay keensan karaan la heshiin karaan xor bay u yihiin marka wali isaga laftigiisu dadaal buu wadaa wadamo kale oo uu xulafo la noqdo ayuu raadinayaa laakiin waa laga guuleysanayaa insha Allah taala wixii ka soo kordhay waan la wadaagi doonaa fadlan haddaad nagu cusub tahay loobin inaad subscribe dhaho sidoo kale muuqaalka aad like saarto. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.